Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni diblomaasi. Madaxweynaha dalka Mexico ayaa qaadacay inuu ka qayb galo shirka dowladda Mareykanku ay qabanqaabisay toddobaadkan la filayo inuu ka furmo magaalada Los Angeles. Shirkaas oo sida dowladda Mareykanku ay sheegtay isugu imanayaan dhammaanba dalalka ku yaala qaaradaha Ameerika. Shirkan ayay dowladda Mareykanku ku sheegtay in lagaga hadlayo dimuqraadiyadda, sidaa darteedna waxay u diiday inay kasoo qayb galaan 3 dal oo Ameerika ku yaala, kuwaas oo kala ah Nicaragua, Cuba iyo Venezuela. diiditaanka 3 dal ee u diiday inay kasoo qayb galaan shirkaas ayuu madaxweynaha dalka Mexico si aad uga xumaaday, waxaana uu ku tilmaamay inay tahay tan mid siyaasadeysan aan doonayn dowladda Mareykanku inay ka hadasho danaha qaaradda, maadaama buu yiri loo baahan yahay hadiiba laga hadlayo danaha qaaradda in dalalkaas oo dhammi ay ku sugnaadaan. sidaa darteedna marka uu wax ka bedeli waayay arrintan lana ogolaan waayay inay dalalkaas ka soo qayb galaan, waxa uu door biday isagu inaanu ka qayb gelin, waxaana uu halkaa u dirayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda. dowladda Mareykanka ayaa iyadu inteeda badan adeegsata siyaasad adag taasoo ay kula dhaqmayso dalalka kale adduunka. mar walba ay dowladda isugu yeerto iyo kulamo walba ay ka qayb galayso, waxay jeceshahay inay iyadu xulato cidda ka qayb galaysa kulamadaas. waayadan dambese waxaa muuqata inay la kulmayso cadaadis weyn, maadaama dalalkaas maalinba dal ka mid ah uu ka hor imanayo dowladdaas. haweeney u hadashay aqalka cad waxay sheegtay in Mareykanku uu casumay dalalka dimuqraadiga ah oo keliya, aana looga baahnan inay dowladda Mareykanka yimaadaan shirna ka qayb galaan dowlado kaligi taliyayaal ay haystaan. inagoo og labada dal ee kale marka laga reebo Cuba inaanay ahayn dowlado kaligi taliyayaal ay haystaan, madaxweynayaashooduna ay yihiin kuwa doorasho ku yimid. haba ahaato inay waqtiyo dhaadheer fadhiyaan, haddana waa kuwa ay dadkoodu doorteen. shirkan ayaa imanaya kadib markay dowladda Ruushku weerartay dalka Ukraine. wixii xilligaa ka dambeeyayna dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda waxaa soo food saartay cabsi weyn oo ay ka cabsi qabaan in Ruushku ugu dambeynta adeegsado hubkiisa nukliyeerka ah, kaasoo hadiiba uu hubka adeegsanayo qaaradda Mareykanka gaar ahaan waqooyiga Ameerika uu yahay goobta kuwaad u beegsan doono. Mareykankuna waxa uu dowladahan u ururinayaa bal inuu xog waraysto sidii la yeeli lahaa. sidoo kale kulankan waxaa kasoo qaybgelaya ra-iisul wasaaraha dalka Canada oo isagu indhawaalaba dabada ka riixayay sidii dowladaha koonfurta Ameerika ay ugu hor iman lahaayeen cunaqabateyno kala duwanna u saari lahaayeen dowladda Ruushka, iyadoo uu sheegay in looga baahan yahay inay ku ciqaabaan duulaanka uu kusoo qaaday dalka Ukraine. isku soo wada duubo markaynu ka hadlayno diblomaasiyadda iyo qaabka uu shaqeeyo xiriirka caalamiga ah ayaa waxaa dhaqan xumo ku ah kulan lagaga hadlayo qaaraddan aayaheed in laga saaro dowlado isla qaaradda ku yaala. daawada fadlan muuqaalka like saar mahadsanid.